marka laba qof oo walaalo ah loo balamiyo interviewga qaxootiga inta badan waxaa la hubiyaa in ay si isku mid ah uga jawaabaan su'aalaha muhiimka ah ee la xiriira qoyskooda, socdaalkooda iyo khataraha ku khasbay in ay dalkoodii hooyo ka soo cararaan. waana hab muhiim ah oo lagu xaqiijiyo runta sheekadooda iyo isku waafaqsanaanta macluumaadka ay bixiyeen. warbixintani waxay kugu iftiimin doontaa nooca xogaha la iswaafajinayo sida magacyada qoyska, goobaha aad ku soo noolaydeen iyo taariikhaha dhacdooyinka muhiimka ah sida loo wajahayo su'aalaha ku saabsan socdaalka iyo wadooyinka aad soo marteen. muhiimadda ay leedahay ka fogaanshiyaha waxyaaba cusub oo aan dhab ahayn iyo runta oo lagu adkaysto. Wasaacid Xaaji Aadan, soo dhawaada mar kale. dadka xiriirka qaraabanimadu ka dhaxayso ee u ballansan interviewga sida walaalaha, waalidka iyo wixii lamid ah waxaa inta badan dhacda in la hubiyo runta sheekadooda iyo in ay si isku mid ah uga jawaabaan su'aalaha muhiimka ah. waxaa dhici karta in su'aalaha la weydiinayo labada qof ay isku dhow yihiin ama si gaar ah loogu kala qaado si loo xaqiijiyo in ay isku waafaqsan yihiin. sidaa darteed waa muhiim inaad diyaargarow wanaagsan iyo isku xirnaan la timaadaan si looga fogaado isku dhacyo ama jawaabo kala duwan. labada qof ee qaraabada ah waa inay si buuxda isugu waafaqaan xogaha ku saabsan qoyska iyo noloshoodii hore sida magacyada iyo naanaysaha saxda ah ee waalidka, walaalaha kale iyo carruurta haddiiba ay jiraan, goobta ay ku koreen sida xaafadda, degmada, magaalada iyo gobolka, taariikhaha muhiimka ah ee dhacdooyinka la xiriira sida dhalashada, dhimashada, dhaawaca, afduubka, hanjabaadda iyo wixii la mid ah, iyada oo la xusayo ugu yaraan maalinka, bisha iyo sanadka. lacalla haddii ay dhacdo in aad xasuusan weydo taariikhda saxda ah waxaad isticmaali kartaa hadallo fudud sida qiyaastii waxay ahayd June 2020 ama ma xasuusto taariikhda saxda ah laakiin waxay ahayd 2021. wargelin muhiim ah. xarunta Saacid Agency waxay kaa caawinaysaa guud ahaan adeegyada kala ah: diyaarinta kaysaska, sixidda kaysaska khaldamay, turjumidda kaysaska, qabashada ballanta faraha, ka jawaabidda interviewga iyo tala bixinta dhammaan wixii interviewga la xiriira. xaruntu waxay ku taallaa Kisenyi, gaar ahaan agagaarka Masjidu Dacwa, suuqa dhanka midig ka xiga ee Juvile Complex. wixii faahfaahin ah fadlan kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda. su'aaluhu badanaa waxay ku saabsan yihiin socdaalkii aad waddanka kaga soo baxdeen iyo guud ahaan wadooyinkii aad soo marteen. waana inaad isku si u sheegtaan goobta iyo bilowga safarkiinni haddii ay ahaan lahayd maalinka, bisha iyo sanadka, wadooyinka iyo magaalooyinka aad soo marteen, tusaale Muqdisho, Dobley, Nairobi ilaa aad Kampala ka soo gaarteen. habka ama gaadiidka aad isticmaasheen sida dhulka, cirka, badda iyo lugta hadba kii ay noqoto. ciddii idinka caawisay kharashaadka safarka sida qof qaraabo ah, saaxiib ama lacago aad horay u haysateen. sidoo kale waa muhiim inaad isla meel dhigtaan xilliga imaatinkiinnii dalka aad hadda joogtaan. labada qof waa inay si isku mid ah uga jawaabaan dhacdada, sababteeda iyo nooca khatarta ay la kulmeen, sida koox hubaysan ama cadow kale. dhacdooyinka khatarta keenay ayaana noqon kara hanjabaad afka ah ama fariin qoraaleed laguu soo diray, dad idinku yimid gurigiinna ama goobtiinna shaqada, dil, weerar ama dhacdo kale oo toos ah. ugu dambayn, ha isku dayin abuuritaanka wax cusub oo aan dhab ahayn unless ay tahay mid aad la kaashatay looyarkaaga ama xafiis arrimahan u dhuundaloola. waxaan marnaba loo baahnayn isku sixidda hadallada qaar inta interviewga lagu guda jiro. haddii mid wax khaldo, kan kale ma aha inuu ku saxo isla goobta dhexdeeda. waxaana habboon inuu ku ekaado xayndaabkiisa. ku celcelinta sheekadiinnu waa muhiim ka hor inta aydaan gelin interviewga. waa inaad isla akhridaan si ugu yaraan qof walba uu ogaado kan kale dhaliilihiisa. diyaargarowgu waa furaha guusha. labada qof ee qaraabada ahna waa inay xogtooda iswaafajiyaan ka hor interviewga, qaab cad oo aan mugdi ku jirinna u jawaabaan oo aysan isku khilaafin su'aalaha muhiimka ah. waa muhiim in ay si gaar ah u muujiyaan khatartii ay ka soo carareen, safarkii khatarta lahaa ee ay soo mareen iyo xaaladda adag ee ay hadda ku sugan yihiin. iswaafajinta jawaabaha iyo kalsooni ku hadalka runta ayaana sare u qaadi karta fursadaha ah in lagu aqbalo ama lagu qaato. fadlan haddii aad nala soo gaartay dhammaadka muuqaalkan waxaa naga xasuusin ah inaad muuqaalka like garayso, siina share garayso si uu meel fog u gaaro dadkuna uga faa'iidaystaan. wixii talo ama tusaale ah waxaad noogu reebi kartaa qaybta commentiska. hana hilmaamin inaad subscribe tiraahdo si xogaha aan channelkan ku soo gudbinno aysan marna kuu dhaafin. intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno waa Saacid Xaaji Aadan oo idin leh nabadgelyo.